السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنا وناكسن داوديال كسر دوادا وركا تلفزيون كرايس حرuntii saddex ee magaalada Muqdisho qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya ku dhawaada 40 kun oo arday ayaa maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ee dugsiyada sare ee dalka. hay'adaha bixiya gargaarka degdega ayaa sheegay in Soomaali badan oo xilligan ku kala nool guud ahaan dalka ay wajahayaan inay u geeriyoodaan gaajo iyo macluul kadib abaarta ku dhufatay Soomaaliya. xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Puntland ayaa ku howlan abaabulka mooshin ka dhana xukuumadda xilligan uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. sidoo kale warkeena intaan ku guri jirno waxa daawan doontaan dawladda Ingiriiska oo sheegtay inay si weyn ugu golsoon tahay qorshaha sharci ahaanshaha xilligan dadka magangalyadoonka ay u dirayso dalka Rwanda. qodobadaas iyo qodobo kale hadba wixii nagu soo kordhaya daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal. markale kulanti waana wanaagsan khiyaartana daawanaysa sidaan raac warka idin kugu sheegnay in ka badan 35 kun oo arday ayaa maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga fasalka afraad ee dugsiyada sare ee dalka. 35 kun oo arday ayaa maanta u fariistay imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ee dalka kuwaas oo ku kala galaya maamulada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Jubbaland iyo gobolka Banaadir. 25 kun kamid ah ardaydaasi ayaa ku galaysa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya siiba maamulka gobolka Banaadir. 67 xarumood ayaana maamulka gobolka Banaadir si toos ah maanta uga daafureen imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ee dugsiga sare. 35 kun oo arday ayaa maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ee dugsiga sare. 25 kun kamid ah ayaa ku galaysa gobolka Banaadir. daafurka imtixaanka waxa ay goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiirka waxbarashada Soomaaliya iyo waliba agaasinka waxbarashada hidaha iyo tacliinta xukuumadda federaalka Soomaaliya. ugu horeyn waxa goobta ka hadlay agaasinka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in imtixaanka sanadkan ay u fariisanayaan 35 kun oo arday. 25 kun kamid ah ay ku galayso gobolka Banaadir. waxa uu sidoo kale sheegay in xarumaha waxbarashada ee lagu galayo gobolka Banaadir ay leeyihiin 67 xarumood ku yaala 17 degmo ee gobolka Banaadir. bismillahir rahmanir rahiim. alxamdulillahi rabbil alamin. sallallahu alayhi wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Cabdullaahi Carab, wasiir dawlaha mudane Cabdiraxmaan Jaabiri, xildhibaankeena weyn baastorkeena liibaan ama dadka soo dhabanacad iyo dhammaan madaxda kale nala joogta baahinta. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib maanta oo bishii 18 Juun 2022 waxaa afar maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ugu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa form 4ka waxaana ardayda guud ahaan galaysa tiradooda gaaraysa 35 kun oo arday. gobolka Banaadir ayaa ugu badan waxa galaya oo tiro ku dhow 25 kun oo arday galaysa. marka goobaha afarta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir goobo fara badan lagu galaya. kaliya gobolka Banaadir ugu xarumo badan oo waxa ku galaysa 67 xarumood ayaa imtixaanka lagu galaya. marka waxaan maartay ku faraxsanahay in maanta madaxweynaha nagala soo qayb gasho ardaydeedana maartay imtixaanka ay galaysa maanta guul ay urjeyneen. marka waxaan hadda warka ku wareejinaa faahfaahinta kale wasiir dawlaha wasaaradda si ugu soo dhaweeyay madaxda kale. dhankiisa wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay deegaanada imtixaanka lagu galayo. waxa uu sheegay in deegaanadaasi ka mid tahay baxdo oo ka dhacay weerar kooxda al-shabaab ay shalay ka geysteen goobtaasi. waxa uu sheegay in goobtaasi ammaan tahay isla markaana ay ka mid tahay goobaha lagu galayo imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ee dugsiga sare. alxamdulillahi rabbil alamin. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Cabdullaahi Carab, xildhibaan keena sharafta dhabancad, agaasimaha guud, saraakiisha ciidamada qalabka sida. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan waxaan rabnaa intuu agaasimaha sheegay kaliya waxaan ku darayaa saraakiisha amniga meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay fududeeyaan. sidoo kale goobihii shalay wax ka dhacayna waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed in saaka amni ay tahay baxdo imtixaankana lagu galayo. dhammaan goobihii aan ugu talagalnayna waxbarashada inay gaareen saakana imtixaanka uu wada bilowday. waxaan rabaa intaa haddaan mar iraahdo inaan ku soo dhaweeyo wasiirka wasaaradda si uu ugu soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda. wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhankiisa hadlay ayaa waxa uu sheegay in sanadihii hore ay ka duwan tahay isla markaana imtixaanku ku soo aaday xilli dalka ay ka dhalatay dawlad cusub.
ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وزارها مدن محمد حسين روبلي وزير دولة وزارة حلبان عبد حاج الليبان ربنعاد أقاسمها معلمين تا ميدياها عيدنكا أمنيكا بوليسكا دمانتي وادي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن رئيس الوزراء ما تحفر حلو النوع هنا امتحانكي فصل كأفراد ويتقيب قليان صدن يشنكنوا أرضي وأفر معمول قبلات يقول كبنادر أنو دافرتو iyadoo sida warbixinta lagu bixiyay magaalada Muqdisho ardayda ugu badan ay ku galayso ilaa 50 kun arday ah. waxaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa howlwadeennada wasaaradda waxbarashada hidaayada tacliinta sare, howlwadeennada wasaaradaha maamul goboleedyada ama dawlad goboleedyada xubinta ka ah dawladda federaalka, waalidiintii ilmaha ku soo tacbay oo u soo diyaariyay inay maanta imtixaanka fadhiistaan, ardayda soo diyaar garowday, ciidamada booliska oo ayagana sanad walba heegan u ah inay amniga sugaan. dadkaas oo dhan waan u mahadcelinayaa. waxaan kaloo u rajaynayaa ardayda guul ayaga iyo waalidkoodba in imtixaanka Ilaahay u fududeeyo oo ay baasaan oo 2 bil kadib ay aad ugu farxaan marka la soo dhajiyo. ayagana waxa way guushaas ayaan u rajaynayaa. Ilaahay wuxuu barayaa inuu u fududeeyo. ra'iisul wasaaraha nala jooga asaga ayaa wixii dardaarana la dhihi doona. asaga ku soo dhaweynayaa mudane injineer Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaare soo dhaw. محمد حسين روبلي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية ودنكيسا goobta ka hadlayay isla markaana ahaa daafuraha imtixaanka shahaadiga fasalka afraad ee dugsiga sare ayaa guul u rajeeyay ardada 35 kun gaaraysa ee maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga fasalka afraad ee dugsiga sare. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وزير دولها حلبانكا حفيزك وزارة waxbarashada dhammaan ciidamada amniga booliiska Soomaaliyeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan daafuro imtixaankii fasalka afraad ee dugsiga sare sano dugsiyeedkii 2022 insha Allah ardayda Soomaaliyeed ee fasalka afraad gobol kasta ay joogaan ee Soomaaliya waxaan leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala ha idin fududeeyo. waalidkii ku soo tacab iyo tiir beelayna waxaan leeyahay insha Allah guul ayaan u rajaynayaa caruurtiinii aad ku soo tacab iyo tiir beeshaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u fududeeyo dhammaan. waxaan rajaynayaa imtixaanka la soo dhajin doonana inaad buundo fiican oo wanaagsan aad ka keentaan noloshiina aad hore u marisaan insha Allah dalkan aad wax u tartaan. waalidkiin ku soo tacab iyo tiir beelayna aad ka warhaysaan. waxaan leeyahay macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee soo waxbaray ardaydaas idinkana waad mahadsantihiin. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay u soo duceeyay ardayda Soomaaliyeed ee xilliga sanadkan 2022 ka sano dugsiyeedkii afraad mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay waa noo furan yahay imtixaankii hore ha loo socdo insha Allah guul ayaa idin rajaynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qaar ka mid ah ardayda maanta u fariisanaysa imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare kana mid ah 25 kun ee ku galaysa gobolka Banaadir siba caasimadda Muqdisho ayaa dareenkooda waxa ay kaga hadlayaan siday u arkaan maanta imtixaanka u bilowday iyo dareenkooda ku aadan iyo siday ugu soo diyaar garoobeen imtixaanka shahaadiga ay fasalka 14aad ee dugsiga sare oo maanta 18 bisha ay ugu fariisanayaan. bismillaah waan ku dhawahay TV-ga RTV magacaygu waa Hodan Axmed Cabdi kana socota iskuulka Sooyaal Primary and Secondary School kana mid ah ardayda maanta u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare fasalka 12aad isla markaana ay qaadayso dawladda federaalka Soomaaliya. runtii maanta diyaar garowgayga aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. markii aan ka soo baxay gurigayga iyo markii halkaan imidna isku si ayay niyadeedu ahayd marnaba ima galin wax walwala iyo wax cabsiya. farxadii aan gurigayga kala soo tagay ayaan haddana waraaqahayga ku dul fadhiyaa oo imtixaanka uga shaqeynayaa. waxaan rajeynayaa inaan guul ka gaaro imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiga sare iyo imtixaanada kale ay igu soo wajahaan anigoo rajeynaya markaas inaan gaaro ilaa heer jaamacadeed hadii Ilaahay uu idmo. dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee maanta u fadhiisanaysa imtixaanka dugsiga sare ee fasalka 12aad waxaan u rajeynayaa guul anigana Ilaahay xaqiisa waxaan ka rajeynayaa guul insha Allah. wadna maasantiin aad ugu rajaqaday inaan heerkan soo gaaro sababtoo ah waxaa muddo badan ayaan rajeynayaa inaan heerkan soo gaaro oo maanta imtixaanka shahaadiga aan fadhiisto. marka
ilaahay mahadiisa hadduu heerkana soo gaarsiiyey waxaan rajeynayaa heer fiican dhibcooyin fiican meel fiican kaalmo fiican aan galo insha Allah. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ardayda Soomaaliyeed aad ayaan mahadcelinayaa kasoo qaybgalka dhammaanta aan kasoo qaybgalnay imtixaanka ugu guuleysanay ilaahay aan fududeeyay dhammaanteen mideeda kale waxaan ka socdaa iskuulka cilmi college waxaan ka mid ahay ardaydii 2020 ayaan ka mid ahay haddana waxaan ka mid ahay ardayda ka qayb gashay 2022 waxa ay tahay farxad inaan ka qayb galo 2 years kadib inkasta ay igu reebtay xasuus 2020 maadaama waxaan rajeynayaa in wasaaradda sanadkan ay iga dhigi doonto sanadkii aan ku farxo inkasta rajadeyda aad ay u fiican tahay waxaan leeyahay ardayda Soomaaliyeed hambali Anas Maxamed Soomane Rise TV Muqdisho kooxaha hubeysan oo hoybtooda la aqoon ayaa maanta kormeer ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta dil waxa ay u geysteen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose dilkaas ayaa ka dhacay xaafadda Xawataako ee degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose ilaa haatan ma jirto cid sheegata balse mas'uuliyiinta maamulkaasi iyo waliba saraakiisha ciidanka ayaa ku howlan cidii ka dambeysay dilka mas'uulkaasi Faysal Cabdi Faarax ayaa faafahinta warkanaya dabli hubeysan ayaa saaki xaafad ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ku toogtay kormeerihii guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ila waraadi lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in rag dhalinyaro ah oo watay bastoolado ay toogteen Ali Shaamu Ali oo ahaa kormeerihii guud ee u qaabilsanaa wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed xilli uu marayay xaafadda Xawataako ee degmada Afgooye waxaana la sheegay in rasaastii ooda looga qaaday uu geeriyooday wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geerida madaxweynaha waxaana ay sheegeen inay si aad uga xun yihiin geerida naxdinta leh ee ku timid iyagoona sidaas oo kale tilmaamay in la diyaarinayo aaska kormeeraha ay saaka ku toogteen raggaasi iyadoona la tilmaamay in maanta uu socday imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo maanta si rasmi ah uga bilowday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gobolka Banaadir xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa ku howlan mooshin ka dhana xukuumadda xilligan hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland inkastoo aan shaaca laga qaadin shakhsiyaadka ku howlan in ay xilligan mooshin ka dhana xukuumadda Dani ay xilligan ku soo rogaan qaar ka tirsan golihiisa wasiirada balse waxaa jira kulamo goosgoos ah oo ka dhacaya magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal faafahintaasi ka badan Baaji Cabdullaahi ayaa eegaysa gudoomiyaha golaha wakiilada DBL Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil way weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad Mudane Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo ku-xigeenka labaad Mudane Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa maanta shir gudoomiyay fadhiga saddexaad kala fadhiga kontonaad ee golaha wakiilada DBL fadhigan waxaa xildhibaanada loogu qeybiyay ajandaha rasmiga ah ee kala fadhiga kontonaad golaha wakiilada sida uu qabo xeroosaadka golaha wakiilada qodobka 42 ee faraqiisa afraad sidoo kale waxaa isla kulanka golaha laga soo jeediyay warbixin ku saabsan waxqabadka labadii kala fadhi ee guddiga joogtada ah taas oo golaha uu ka akhriyay xogayaha guud ee golaha wakiilada Mudane Cabdirasaaq Xidig Warsame balse hadalheynta ugu badan ayaa la xiriirinayaa xildhibaanada dhexdooda in xukuumadda mooshin ay ka keenaan shirkadaha ka howlgala gudaha dalka ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin kadib markii ay soo wajahday cabsi ku aadan dhanka ammaankooda mas'uuliyiinta shirkadahan waxay carabka ku dhufteen in ay u baqayaan amniga diyaaradooda waa sida ay sheegeen guddiga maamulka diyaaradaha gudaha dalka ayaa maanta shir ay yeesheen ku sheegay in laga bilaabo maalinta Berita ay joojinayaan dhammaan duulimaadyada gudaha dalka iyagoo sheegay in gebi ahaanba diyaaradaha ka shaqeeya gudaha dalka ay joojinayaan shaqadii ay u hayeen bulshada Soomaaliyeed war-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen dhammaan madaxda shirkadaha diyaaradaha ka howlgala gudaha dalka ayay uga hadleen caqabadaha ku soo cusboonaaday qaybo kamid ah garoomada dalka kuna saabsan ku kalsoonaanta amniga guud ee dalka waxayna sheegeen in isla garteen in la joojiyo duulimaadyada gudaha guddiga maamulka shirkadaha dalka ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay ku sheegay in ay isla garteen laga bilaabo Berito Axada taariikhduna ay ku beegan tahay 19 Juun 2022 in la joojiyo dhammaan duulimaadyada ay shirkadaha ku tagayeen garoomada dalka ilaa laga gaaro xal badbaadin kara badqabka diyaaradaha ayaa rakaabka saaran sida lagu yiri war-saxaafadeed ay soo saareen maanta maamulka shirkadaha guud ee dalka ayaa sheegay in hay'adda duulista rayidka ku guuldareysatay xaqiijinta amniga garoomada dalka ku yaala taasina ay ku kaliftay inay ku dhawaaqaan shaqo joojinta ka soo baxday maamulka shirkadaha diyaaradaha
diyaaradaha gudaha dalka ayaa weli ka jawaabin dowladda gaar ahaan hay-adda duulista hawada taasoo ku sheegay inay ku guuldareysatay inay ilaaliso amniga diyaaradaha iyo rakaabka saaran guud ahaan dalka. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa kulan degdeg ah waxa uu isugu yeeray xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland. kulan albaabadu u xiran yihiin ayaa la filayaa in maalinimada beriya uu ka dhaco magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal kaasi oo u dhaxeeya madaxweynaha maamulka Puntland iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland. lamana ogo waxyaabaha sida gaarka looga hadlayo balse xiriir toos aan sameeyno waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni dhagtiisa marka ay ku soo dhacday in mooshin ay ka wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland oo isugu yeeray xildhibaanada isagoona arrimahaasi arrimo kala duwan kaga hadlaya. gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaana golaha hortooda waxa uu ka sheegay in uu warqad u soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni kaasi oo ku dalbanayo in ay kulan degdeg ah isugu yimaadaan isla markaana uu kula kulmi doono madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland. arrimaha uu kaga hadlayna ma shaacin gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland. waa maasantiin mudanayaal berito message baa xalayna soo wada gaaray madaxweynaha ayaa in casimaadana madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu golaha la hadlo waana kulan albaabada insha Allah u xiran yihiin waa la wada hadli doonaa madaxweynuhuna waa idin la hadli idinkuna waa la hadli doontaan insha Allah billahi kariim kulankaasina waa inoo yeebrito mudanayaal u soo diyaar garooba dhibaatana ma leh inaan madaxweynaheeni aan la doodno haddaan dood qabno aad la hadashaan insha Allah billahi kariim kulankaasina ka weeyaa loo soo diyaar garoobo waana maasantiin mudanayaal waxaan soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad gudoomiye Ismaaciil oo inagu soo biray gudoomiye soo dhawo waa ka xunaay waa ka hor bilaabanay hawshii haddana waa xilligii gabagabada waa soo xidhanaynaa mudanayaal. hay-adaha gargaarka bixiya ayaa si cad u sheegay in dad badan oo Soomaali ah xilligan wajahayaan dhibaatooyin macluul iyo gaajo inay u geeriyoodaan qaar ka mid ah gobolada dalka. hay-adda NRC waxa ay sheegtay in Soomaali badan ay xilligan ku nool guud ahaan gobolada dalkaasiba maamulada qaar ay xilligan wajahayaan dhibaatooyin dhanka nolosha isla markaana haddii aan gargaar degdeg ah la soo gaarsiinin ay u geeriyoon karaan macluul iyo gaajo ka jirta gobolada dalka taasoo ay sheegtay inay saameyn ku yeelatay abaarta ku dhufatay guud ahaan Soomaaliya. Aamina Nuur ayaa faahfaahin intaan ka badan haysa. abaaraha ba'an ee ka jira geeska Afrika ayaa si weyn u saameeyay Soomaaliya iyadoo malaayiin qof la sheegay inay wajahayaan cunno yaraan. hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya boqolaal kun oo Soomaali ah ay sidoo kale qarka u saaran yihiin dhimasho iyadoo boqolaal caruur ahna ay haatan u dhimanayaan macluul. hay-adda samafalka ee NRC ayaa warbixin ay soo saartay waxay kaga digtay in haddii gargaar aan la gaarsiin dadka tabaalaysan ay xaaladoodu intaan ka sii dari doonto. warbixinta hay-adda ayaa lagu xusay in muhiimadu ay tahay in loo istaago sidii loo caawin lahaa dadka ku nool geeska Afrika. NRC ayaa tilmaantay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay abaarta ka jirta inay isku beddesho xaalad macluul ah. Ilqidir Doolam oo ah agaasimaha hay-adda WFP u qaabilsan Soomaaliya ayaa dhawaan shaaca ka qaaday muhiimada ay tahay in si wadajir ay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada si looga hortago macluusha ka dhalan karta Soomaaliya taasi oo sababi karta dhimashada kumanaan kun oo ruux kuwaas oo haatan la daalaa dhacay abaarta ka jirta Soomaaliya. 7.5 milyan oo ruux oo Soomaali ah ayaa wajahaya dhibaatooyinka ka dhashay abaaraha ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana tirada tahay 50% tirada guud ee dadka Soomaaliyeed ee la daalaa dhacay abaaraha ka jira Soomaaliya. dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay inay ku kalsoon tahay sharci ahaanshaha qorshaha ay dowladdaasi dadka magangalya doonka ay ugu dirayso Rwanda. dowladda dalka Ingiriiska waxa ay sheegtay in si weyn ay u xoojin doonto ammaanka xadkeeda kadib markii ay bateen muwaadiniin dalal kale inay ka soo gudbaan dhanka waqooyi ee dalka Faransiiska. sida faahfaahinta warkan ay nagu eegayso Baaji Cabdilaahi. ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sabtida maanta sheegay inuu ku kalsoon yahay sharci ahaanshaha qorshaha dowladdiisa ay dadka magangalyo doonka ugu dirayso Rwanda kadib markii duulimaadkii ugu horeeyay ay hor istaagtay maxkamadda xuquuqul insaanka ee Yurub. maxkamadda ayaa talaadadii amartay in la xoojiyo tarxiil qorshaysnaa ee dhowr qof oo muhaajiriin ah oo saarnaa diyaaradii u qaadi lahayd Rwanda waxaana uu Johnson go'aankaasi ku tilmaamay hakintii ugu darneed oo timid daqiiqadii ugu dambeysay. maxkamad kasta oo dalkan ah waxa ay sheegtay inaysan jirin wax caqabad ah oo ay arki karaan ma jirto. maxkamadda dalkan oo go'aamisay in siyaasadani ay tahay sharci daro taasi oo ahayd mid dhiirigelin weyn ayuu Johnson u sheegay wariyaasha. aad ayaan ugu kalsoonahay sharcinimada cadaaladnimada waxa aan qabanayno waxa aan doonaynaa inaan sii wadno siyaasadan. dhinaca kale xoghayaha arrimaha gudaha ee Britain Priti Patel
ayaa ku sheegtay wareysi Sabtida maanta ah la daabacay in fargelinta maxkamadda Yurub ay ku hakisay duulimad lagu wado inuu dad magangelyo doon ah lagu tarxiilo dalka Rwanda uu ahaa mid siyaasadeysan. Waa inaad eegtaa sababta ayay u sheegtay Daily Telegraph kadib markii maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha ay arrintan soo faragelisay talaadadii xilli ay diyaarad ku wajahan Kigali ay kici lahayd. Maxay u qaateen go'aankaas? Ma waxa ay ahayd mid siyaasadeysan? Anigu waxaan qabaa inuu sidaas yahay gabi ahaanba. Dowladda Ingiriiska ayaa ballan qaaday inay adkeyn doonto xuduudaheeda kadib markii ay kordheen tirada muhaajiriinta ee dalkeeda kaga soo gudbaya dhinaca waqooyiga Faransiiska. Dadka ilaa iyo hadda la qabtay ayaa gaaraya 11,000 oo qof oo ah ku dhawaad 2 jibaar tiradii sanadkii hore oo dhan. Laakiin heshiis muran badan dhaliyay oo ay Rwanda la gashay si dalkaasi loogu diro qaar ka mid ah dadka magangelyo doonka ah ayaa caro dhaliyay. Ilaa 130 magangelyo doon ah ayaa markii hore loo qorsheeyay inay raacaan duulimaadkii talaadadii, balse qof la tarxiilay ma jiro kadib caqabado isdaba joog ah oo dhanka sharciga ah ee xuquuqda aadanaha la xiriira. madaxweynaha Costa Rica ayaa burcadda wax ku jabsatay internetka waxa uu ku tilmaamay kooxo afgembi ku ah dawladda dalka uu xilligan hogaamiyo. waxa uu sheegay in arrimahaasi arrimo badan uu gacan xoog ah ku qaban doono isla markaana uusan aqbali doonin in aalad internetka loo adeegsado sidii lagu dumin lahaa dawladda dalkaas oo isaga madaxweynaha ka yahay. faafahinta warkan mar kale Aamina Nuur ayaa eegaysa. dalka Costa Rica ayaa labadii bilood u dambeeyay wuxuu la daalaa dhacaya weeraro dhinaca internetka ah kaasoo kooxaha weerarka geysanayaan ay la wareegayaan baraha internetka ee qaar ka mid ah xafiisyada dawladda iyo waliba xarumaha gaarka loo leeyahay kuwa soo bixin jiray adeegyada kala duwan oo bulshada u baahan tahay. weerarada dhinaca internetka ayaa sababay in dawladdu bixin kari weydo mushaaraadkii macallimiinta, waxay curyaamiyeen nidaamkii canshuuraha halka saraakiisha caafimaadkuna awoodi waayeen inay helaan diiwaanada caafimaad ee bukaanada ay ku jiraan dadka qaba xanuunka COVID-19. madaxweynaha dalka Costa Rica ayaa ku dhawaaqay in dagaalka dhinaca internetka ee lagu jabsanayo aaladaha isgaarsiinta ee dalkan inay halis geliyeen geedi socodkii dalka ayna kooxaha ajnabiga ee weeraradan ka dambeeyay ay doonayaan inay afgambiyaan dawladda dalkaas ka dhisan. weerarada madax furashada ah ee lagu qaaday dalka Costa Rica ayaa guud ahaan qalqal geliyay nolol maalmeedkii dalkan ku yaala bartamaha Ameerika. weeraradan ayaa lagu eedeynaya inay ka dambeeyaan kooxo maafiya ah oo fadhigoodu yahay dalka Ruushka, waxayna kooxahani bartilmaameedsanayaan wadamada aanay horumarsanayn difaaca ay kaga hortagi karaan weerarada dhinaca internetka. dalka Costa Rica oo saaxiib dhow la ah Mareykanka ayaa la filayaa in Mareykanku uu ka gacan siin doono sidii looga hortagi lahaa weerarada sidan oo kale ah oo uga yimaada kooxaha burcadka ee fadhigoodu yahay dalka Ruushka. Mareykanka laftiisa ayaa la kulma weeraro joogto ah oo uga yimaada kooxaha burcadka internetka ka dhisan, waxaana sanadkii hore weeraro madax furasho ah ku qaadeen dhuumaha shidaalka qaade ee ku yaala xeebaha bari ee dalka Mareykanka, iyagoo sidoo kalena ku qasbay inay shaqada ka hakisado warshada ugu weyn ee dunida hilibka soo saarta. waagaag daawadayaal wali waxaad daawanaysaan warka telefishinka Rais xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. markaana waxaan isla soo gaarnay xilligii aad daawan jirteen xubinta ciyaaraha. kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ku soo dhawaada xubinteena ciyaaraha warka oo aad ka daawanaysaan Rise TV. qodobada xiisaha badan xubinta aan idinku ugu soo gudbin doonana waxa qayb ka ah haddaba ogow laacibkani waxa maalmihii ugu dambeeyay si weyn u xiiseynaysa Manchester City oo doonaysa ciyaaraankaasi inuu buuxiyo qaybteeda qadka dhexe si uu u noqdo badalka wiilka reer Brazil Fernandinho. haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola oo in muddo ah ku joogay qorshaha ku aadan xiddigaasi Calvin Phillips ayaa xilligan waxa ku soo biiraysa kooxda reer France Paris Saint-Germain oo doonaysa in ciyaaraankaasi Calvin Phillips ay geeyaan magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska. inkastoo PSG ay rumaysan tahay isku day ku aadan 50 milyan oo lacagta banka inay markaa kula soo wareegi doonaan laacibkaasi. lacag aad u fara badan oo dhinaca mushaaraadka ah lagu soo jeedinayo ciyaaraankaasi Calvin Phillips waxaana loo ogolaan doonaa in isbuuc walba kooxda ka dhisan caasimadda dalkaasi Faransiiska ee PSG uu ka qaadan doono 200,000 oo lacagta banka.
maamulka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa hore u sheegay isku daygooda inay kaga soo faa'iideysan doonaan iyadoo dhowr xidig kalena ay shaabada ay saarayso kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain si ay u noqdaan kuwa ay ku soo guuleysan doonaan. Calvin Phillips wuxuu ka mid yahay 7 xidig ee waqtiga kan xaadirka Paris Saint-Germain ay daneynayso inay suuqa markaa ay kala soo wareegto, maadaama maalmihii ugu dambeeyay soo baxayeen sheekooyin xan ku aadan in ciyaaraankaasi uu isaga dhaqaaqi doono Stadio Old Trafford. Cristiano Ronaldo ayaa la sheegay xil ciyaareedkan cusub in kaalin weyn uu ka qaadan doono markii loo eego wada shaqaynta tababaraha cusub ee kooxdaasi Erik ten Hag. 37 sano jirkan u dhashay dalkaasi Boortaqiiska ayaa tan iyo kusoo laabashadiisa Stadio Old Trafford waxa uu muujiyay xarakaad si weyn u soo jiidanaya taageerayaasha iyo maamulka kooxdaasi. Sidaas darteed xil ciyaareedkii soo ilaaday 2021-2022 Ronaldo waxa calankiisa uu si weyn kaga babanayay horyaalka Premier League, inkastoo ay Manchester United aysan wax natiijo ka gaarin koobkii ay dhammaan ka dhex muuqanaysay. haddaba Ronaldo ayaa mar la saadaalinayay inuu isaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Manchester United ayadoo dalabyo waaweyn ka soo gaaraya sida kooxda Inter Miami ee ka dhisan horyaalka MLS-ka dalka Mareykanka, Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka Ligue 1 wadankaasi Faransiiska. Laakiin sheekadaasi sheeko ka bedelan ayaa soo baxaysa oo waxa la leeyahay Roma iyo kooxda kubadda cagta Sporting Lisbon ayaa la fahansan yahay inay si weyn u xiiseynayaan xidigaasi Cristiano Ronaldo si laga soo xiganayo wakiilkiisa, balse waxa hadda kooxda kubadda cagta Manchester United ay doonaysaa in Cristiano Ronaldo dalab walba ee laga soo gudbiya uu si fudud kaga dhaqaaqi doono kooxda. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Thomas Tuchel ayaa markaa doonaya in ay isbedel xooggan sameyn doonaan maadaama ay u muuqanayso mid ay ku guuldareysanayaan dalabka ku aadan Gabriel Jesus oo ku sii dhawaanaya inuu ku biiro garoonka Emirates ee kooxda kubadda cagta Arsenal. Sky Sport ayaa markaa shaacinaysa in tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea uu aad markaa u doonayo in kooxdiisa uu ku soo biiriyo لاعب كل شيء وضع كاس إنجليز كان رحيم ستيرلينا تضيل بات جيركاني أياد صورة قال نقول كرتين وسجسوا دقائق دونه قرن كإتحاد استاديوم يكوح مانشستر سيتي يكوح يارتو وقتي كان حاضر كا وحلوجو جوجل حاريا إن ويمادو كيجد ستافون بريتش يكوح جلسة مركا يكوح يارتو ما دام أود السيء تبرع كوح دكبد عقد جلسي توماس توغل ميمدي سوحو يهاي قيبته ورر كي دفاع إن سوين وكجو فكره كهر إنت أوسن فرمين هوريالكا بريمير ليغا 5 bisha Agosto. xidigan waqtiga kan xaadirka ka tirsan kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee Dusan Vlahovic ayaa wax laga weydiiyay dalabkii ka soo gaaraya Premier League gaar ahaan kooxda kubadda cagta Arsenal iyo xiriirkii la saadaalinayay ee Mikel Arteta. haddaba laacibkan ayaa yiri mar walba waxaan dhigdhigeynayay kaliya hal koox waxayna ahayd kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus waa Juve, sidaas darteeda waxaan aad ugu faraxsanahay imaanshaha iyo sidii weyneed ay ii soo dhabeeyeen maamulka kooxda kubadda cagta Juventus. mana jirto hadalheen ama xiriir aan la sameeyo kooxda kubadda cagta Juventus iyo kooxo kaleba. muhiimadeedu waxay ahayd haddii aan ka dhaqaaqayo kooxda Fiorentina inaan ku soo biiro kooxdii riyadeeda ee Bianconeri Juventus. haddana waxaan ahay laacib ka tirsan kooxda Juventus, aad baan ugu faraxsanahay, balse waxaan ka caroonayaa hadaladii xanafta lahaa ee ka soo baxayay maamulka kooxda kubadda cagta ee Arsenal kuwa ugu tilmaamayay inaan ahay mid la lushqaata. sidaas darteedana anigu uma jawaabin, kaliya waxaan qirayaa in kooxda kubadda cagta Juventus ay ahayd kooxda kaliya aan aadka markaa u doonayay in garoonkeeda aan soo cagdhigto. waan ku faraxay markii liiga Ingiriiska maaliyadda kooxda kubadda cagta Juventus tani waxay ii ahayd riyo ii rimowday, laakiin ma jirto meel aan kaga dooran lahaa kooxda Juventus kooxaha kale ka dhisan tartamada qaarada Europa. sidaas waxa yiri hogaamiyaha cusub ee kooxda Juventus Dusan Vlahovic. inta inoo joogto xubinteena ciyaaraha warka waad ka daawaneysaan Rice TV tan iyo xubinta xigta nabadgelyo. gudaha khiyaartana daawanaysa waan inta warkii aad kala socoteen telefishinka Rice xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho. anigoo Anas Maxamed Soomaali la socodsiinaya inta ku kulmi doono warkaan warkiisa xiga. sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.